السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو هند اسمان عبدي وحنا هاي تاجرة ولين تاجرة يا معلمات دجن دلكن سويدن. magacaygu waa yaasiin yuusuf magan oo jooga waddanka Malaysia gaar ahaan magaalada caasimadda ee Kuala Lumpur. magacaygu waa Sara Cabdilaahi waxaan ku suganahay dalka Shiinaha. magacayga waa Fatima Abdi waxaan deganahay waan ku soo barbaaray waddanka Holland. magacaygu waa Khadar Axmed Xasan waxaan deganahay Faransiiska. magacaygu waa Maxamed Carab waxaan ku noolahay magaalada Kiev ee dalka Ukraine. magacaygu waa Maxamed Sugulle Jaamac jooga Costa Rica Central America. magacaygu waa Ciise Jaamac waxaan joogaa jasiirad Abaagunil walaalo dhakhtar baani halkan aan ka shaqeeyaa. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Maxamuud Axmed Maxamed ku magac dheer Maxamuud Qori ku nool waddanka Canada gaar ahaan magaalada Edmonton. السلام عليكم مقعيق وحلا إلى السهرة بكر وحن كنا للمرايكة. أنا جوا أحمد صالح حمدي قدوميها جالية السومال لان إدارة كسر مركا. وحويان هذا النوع عن خطر وين بيالان كران هدي أن تحذر الله يمن إلى هاي الثلاث سعران مركا كوات طبعاً الله يمن إنت ذلك. ده هدي بقى إنه عارف إنه عايزة تندي وده عايزه يعني هاي إنك غير كل واحد وأدينا كمان سوق ويسو هدي أن مركا la isku dayin laga dadaalo sidoo kale waxay cuduradan oo kale dunida markii koobaad labaad iyo saddexaad midna ma aha taariikhaha dhow tusaale ahaan waxa jirtay waxaan la yiraahdo Spanish flu-ga 1918 waa dagaalkii koobaad ee dunida waxa la sheegay inuu dilay guud ahaan dunida in u dhaxaysa 50 milyan oo qof ilaa 100 milyan oo qof dad meel bay ku dhufaan dadka Somaliland ku nool xilliga maaha Soomaalida oo dhan oo kaliya ayuu boqolkiiba 7 boqolkii qof ee Somaliland ama meesh markii Soomaaliya isku jiro gobolada waqooyi loo yaqaan ku noolba 7 kamid ayuu dilay. cudurka safmarka ah ee COVID-19 waa cudur dilaa ah waxaan weeraraa habdhiska neefmareenka ee qofka bini'aadamka waxa uu sababaa ama qofka uu ku sababi karaa dhimasho. waa cudur ugu horeyn laga helay dalka Shiinaha magaalada Wuhan waxa uu ku fiday caalamka waxa uu gaadhay cirif ilaa cirif qaarad ilaa qaarad waddan kasta waa uu saameeyay. xanuunku markuu jirka bini'aadamka soo galo waxa uu dadka caafimaadka qaba way iska difaaci karaan xanuunka halka kuwa xanuun daada weyn isla markaana xanuuno kala qabay ayaga laftoodu ay ku adkaanayso inay iska difaacaan jirka ومعدل الأسيتوكين ستوك سيندروم أو jirka uu inflammatory response uu ku keeno kadib ay khasaare ku keento organada kale sida kaliyaha wadnaha dhibaatadaas uu ku keena dadka immuunkoodu ama hab dhiskoodu difaaca uu daciif yahay xayawaan bay ka timid xanuunku waa run oo xayawaanku ka yimid waxa la yiraahdo kidnaarta ama bad isla markaana waxa soo dhex maray mid kale la yiraahdo pangolin oo ay qarandidoo kale. xanuunkani waa halis waa mid faafintiisa la yareysan karin kana yimaada dheecaanka qufaca ama hindhisada hawada gala hab kale aad ku qaadi kartid jiradani waxa weeye haduu uu dheecaankii meel miis ah oo kale uu ku dhaco oo aad gacantaada saartid kadibna gacantaadii viruskii ama dheecaankii gacantaada uu saarmo waad kadibna wajiga kale la tagtid oo sankii iyo indhihii iyo afkii aad marmarsid waa hab kale aad ku qaadi kartid jiradan. sadogsoontiima dalka Shiinaha waa dalkii ugu horeeyay xanuunku ka bilaabmay COVID-19 ama coronavirus aad u taqaanaanba marka muddada waxaan ku sugnaa xanuunku bilaabmay ilaa iyo hadda oo xaaladdu sahlan tahay. waxaan jeclaystay inaan ummadayda u sheego waxyaalaha ay mudan yihiin lagaga daydo dadka Shiineysku. tallaabadii ugu horeysay dawladdu qaaday waxay ahayd inay dadka lagu amro inay guryahooda fadhiyaan iyo inay dhammaan xidhaan isku socdaaladii haddii gaadiid noqoto iyo haddii tareen noqoto iyo hadday noqoto in magaalooyinkiiba lagu soo rogay bando taas waxay ka saaciday inay xanuunka xakameeyaan. bulshadiina way u dhagan nuguleyd markastoo rules ama markastoo sharci ay dawladdu soo saarto sideeday ku qaadanayeen taas baa Shiineyska wallahi ka qaadatay baan oran karaa xubin weyn. saad ogsoontiin baad arkaysaan dawladihii kale quwadda lahaa ama economigoogu
يعني هايغا هابا إميكا لا ديبان إني حنونك حكميان waxaynu ognahay wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Finland, Sweden wadamadaas oo dhan farabaas ku hayo dadka Soomaalida gaar ahaan waxay sheegeen dawladaha ka jira wadamadaas iyo goboladaasi in dadka cudurkan uu ku dhacay ee migrate marka loo eego tirada guud ahaan inay Soomaalidu yihiin numberka ugu badan marka loo eego wadamada ay ku nool yihiin runtii waxay ka yihiin boqolkiiba 0.1 kama aha haddana waxa la isweydiinayaa waxa cudurkan dadka ugu faraha badan ku dhaca ka dhigay Soomaalida taas iyagu soo qaateen 3 qodob qodobka koobaad waxay yiraahdeen Soomaalidu waa dadaan flow gareynin ruuriska iyo sharciyada la soo saaray qodobka labaad waxay yiraahdeen Soomaalidu waa dad guriyaha ugu wada nool si of karooda oo gurigiiba 5 qof 6 qof ay ku nool yihiin qodobka saddexaad waxay yiraahdeen Soomaalidu waa dad isbooqda oo inta badan maxaa la isku warwareega baabuurta wada raaca guriyaha wada seexda cuntada sheer gareeya ay sheegeen qodobka ugu dambeeya runtii waxay yiraahdeen qofku markuu xanuunsan Soomaalidu sida macnaheedu waad aragto kale shinidoo kale shurug hal mar ku soo yiraahdaan deetana markaas qofkii hadduu isagoo cudurku qabay way ka qaadayaan hadduu qofku cudur kale hayo xanuunsanayna iyaga qofka mid kamid ah qaasinayo cudurkii maxaa la sida qodobka ugu dambeeya wadanka Ingiriiska kale iyo Norway maxaa yahay wadanka Norway iyo Sweden saddexda wadamo ka maalinta joornaaladooda iyo warbaahintood waxay qoreen cudurrada dadka waxa ugu badan ku faafay Soomaaliya waxa kamid ah cusbitaalada booqan ee isku booqdeen guryaha iyo xabaalaha oo laga yaabo qof qaba intuu xabaashi yimaado inuu intaas oo qof oo kale oofayo u sii saneeyo waxa kale oo isweydiin leh haddii cudurkan macaasida ku baxay cidii noolaata inuu ku yeelan doono impact Soomaalida guud ahaan dadka qurbaha jooga dadka raba inay qoysaskoodii la midoobaan ama dadka raba caruurahoodii dadkoodii inay keensadaan ama dadka doonaya inay wadamada ma yimaadaan si doonaan ku yimaadaan in laga fiirsan doono runtii oo sharciyana laga hoos saari doono maadaama aanay follow gareynahayn ama aanay raacayn sharciyadii iyo qawaaniintii u dhignaa wadamada anigoo xirfadle caafimaad waxaan arkaa in ay idinaan u dhagan nugleyn talooyinka la idin siinayo xanuunkani corona ma ahan mid aniga iyo adiga kaliya ku koobnaanaya haddaynaanu dhagaysan weyno talooyinkana la farayo waa xanuun dilaa ah cidnana dhaafi maayo marka waa inaanu talooyinka qaadano habkaanu u xakameyn lahayn jiradani inagoo ilaahayna tala saaranayna hooyo naag baa iska soo qaylinaysa nin kale iska soo qaylinay xoray kan ayaa u dawo kanan isku bogsiyay sidaan isku bogsiyay kala chat sidaynu u nahay u kala duwanahay baynaynu isdifaacideena u kala duwan yihiin haddii adiga ku caawiyay waxa aad sheegaysaa laga yaabo inaanuba ahayn badur caadi ah wixii ku hayay oo coronavirus ahayn sidaa fadligeed waxaan idinka codsanayaa please maqla oo kaliya meelaha caafimaadka lagu shaqeeyo lagu sheegayo qof dhakhtar soo sheegay xogtii aad maqasheen xogtaasoo kaliya dadkeena ha lagu daweeyo oo qofku ha dalbado caawin waxa laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo maxaa la iga rabaa inaan guriga u joogo tusaale yar oo kooban hebel ama heblaayo oo shaqalaatan jir caafimaad qaba ama caafimaad qabto wax calaamadii ka muuqan ayaa laga yaabaa in xanuunka la soo darsan laakiin aanu isagu qofkaas isdareensanayn muddo yar oo kooban waxa laga yaabaa qofkaas inuu dibadda u baxo uu la kulmo 15 qof 15 qof ee qofkaas la kulmay waxa laga yaabaa inay la sii kulmaan 15 qof midkiiba taasoo keeni karta muddo yar oo kooban gudahood xanuunkii inuu gaadho boqolaal ama kumanaan haddaba ujeedada guud waa labo inaad naftaada ilaaliso iyo inaad dadka kale galaafan guryaha markaad joogtaanna aad taxadar muujisaan aan ilaahayna ku xirnaataan maxaan idhi waxa ka caawiyey waxa weeyaan ismaqal wada shaqayn buuxda iyo in guryaha la joogo oo la fadhiyo guryaha intaas baa ka caawiyey oo oran karaa maanta way ku guulaysteen shiineysku inay xanuunka xakameeyaan marka ummadayda waxaan idinkula talinayaa inaad guryihiina fadhidaan inaad khubarada caafimaadka la shaqaysaan inaad u hoggaansantaan dhammaan sharciyada ay xukuumaddu soo saarto tusaale ahaan wadamada horu maray oo kale Faransiiska oo kale ama Yurubtan oo kale dadka markay ku taado guryihiina jooga waxay sameeyaan baahidoodii bay dhamaystiraan tusaale ahaan Faransiiska oo kale aan deganahay qofkii shaqaynayay wax shoomaasha la siiyaa oo isagoo waxa weeye fadhiya ayaa lacagtiisa mushaarka u soo dhacda Yurub iyo waxa weeye adduunka kale horu maray oo dhamina waa caynkaas maadaama inagu aynaan saa samayn karaynin oo baahida dabooli karaynin waxa muhiim ah inaynu inagu sidii aynu isu gacan qaban jirnay isu gacan qabano inaynu waxa weeye iscaawino inaynu istaakulayno inaynu isxaal ogaano ayaa muhiim ah ma jirto dawlad aynu ku hadlayn karno xaaladan adag dawladdu waxa kaliya aynu samayn karnaa waxa weeye inaynu talooyinka guddiga caafimaadka aynu waxa weeye aynu dhageysano aynu qaadano oo guryaha joogno adduunku maanta ma jirto daawo xanuunkan laga sameeyey
oo maaragtay xanuunkan la leeyahay xanuunkan way daaweynaysaa laakiin waxaa keliya ee la ogaaday ee lagu badbaadiyay waxa weeye stay at home ama restez chez vous guryihiina jooga hadduu maanta qofku haysan 9 carruur aan haysto aanan maanta waxaan soo shaqaysan jiray lacagtii aan soo shaqaysan jiray aanay soo galaynin dowladdiina igu tiri gurigaaga joog suuqi waa la xidhayaa maxaan siinayaa 9kayga carruurtaha waa inay dowladdu ka fakarto waa inay dowladdu ay action plan samayso sida dadkan danyartaa lagu caawinayo taajiriintu waa inay sadaqa bixiyaan dadkan kutaanada haysta qof allaala qofkii maanta awooda inuu dad caawiyo waa inuu caawiyo dadkan Yurub jooga ee dadka bilashi u diri jiray yaanay oran maanta suuqa waa la xidhay dad lacag bayna soo gashay dadkeena Yurub jooga waa in qof kastooba dadkii danyarta ah ee wadankii jooga wax la tarobadan ba soo socday bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Axmed Saalax Abdi gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka waxaan ugu baaqayaa halkan ka dirayaa fariin caafimaad bulshada Soomaalida ee ku nool daafaha dunida fariintaas oo ku aadan xarunka COVID-19 waxaan leeyahay oo ka codsanaynaa bulshada in aanay booqin dalkii hooyo maadaama aynu ku noolahay wadamada uu xanuunkan sida ba'an uu saameeyay iminka xaalku runtii buu yimid qof kastana wuu ogyahay waanu aragnaa meeshuu xanuunkan marayo xanuunkana waanu qarsanaa haddaanu Soomaali nahay xanuun kasta ha ahaado xanuunkana ilaahay baa keena allahna naga qaada ilaahay hayna ilaaliyo horta laakiin haddana waxa weeyaa inaan u dhaga nuglaano oon maqalno dadkeenan caafimaadka ama khubaradeenan inoogu howlan mar walba inale yani hal la fadhiyo guryihiina waa muhiim in guryaha la fadhiyo maadaama xaalad adag lagu jiro qulba joogta waxaan halkan uga jeedinaynaa in ay wixii ay dirayeen ay wax ku sii daraan maadaama xaalad adag lagu jiro dadkan Yurub jooga ee dadka bilashi u diri jiray yaanay oran maanta suuqa waa la xidhay dad lacag bayna soo gashay dadkeena Yurub jooga waa in qof kastooba dadkii danyarta ah ee wadankii jooga wax la tarobadan ba soo socday waxaa muhiim ah in aynu qaadano talooyinka caafimaad ee xirfadlayaasha caafimaadku ay gudbinayaan waxaan idinkaga tegayaa ta hand om varandra tvätta händerna med varmt vatten och tvål var försiktiga bleiben Sie bitte zu Hause waschen Sie Ihre Hände und halten Sie bitte Abstand ik zeg blijf thuis was je handen zoals het moet en blijf alert omtrent jouw gezondheid 80% of infectia передаются через рука. Мойте рука, будь ласка. Je vous terminer mon parole. Restez chez vous, s'il vous plaît. Merci. Stay home, be safe, wash your hands. Thank you.